halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegne qodobada wariyo waxaan idinka hayno careedag waxa ugu dooroon geedka lagu noqo xasaradaha careedag oo sheegay Cali Garle Aydiidna Garle xisbiyo ka alkuman Ciraaq oo ku xilan furay ka qaybgalka wax doorasho lagu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo Goodi iyo Galalaati isugu dhafay wasiiro u halay Maxamuud Xaashi Cabdi oo xisbiga wadan isaga kaga tolay dib u dhigista shirkooda 14 caanamal Soomaaliya oo lagu soo duduucayo bile iyo xirsi calow aanteeno lagu walacsanayo xildhibaan Barkad Batuun oo la bixiyay falaagada TPLF oo u qayla dirsatay reer galbeedka oo la afarta beenajo ka kulaalaya maqalle iyo maraakiib rarsida oo 12 caalamal hoganaya badda Berbera wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idin haynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena waxay sheegeen wararka ka soo diniinaya dalka Itoobiya in soorka loola galay nimankii Tigray ee mar la welin jiray Itoobiya warku wuxuu sheegayaa in dagaal qaraadh oo la isu eebagurtay la isuna nacay hubka culus uu ka bilaabmay waqooyiga Itoobiya iyadoo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi oo raaba uga soo baxayay saldhigyo lagu carbinayay ay afarta beenajo ka weerareen falaagada TPLF dagaalka ayaa la sheegayaa in idifka la isgeliyay oo aan xilligan la isu turayn iyadoo cirka iyo dhulkaba la iska halgaadayo gabraaratada TPLF ayaa iyaduna aflabadii yeedhay waxayna sheegtay in balaayo lagu soo ekeeyay maadaama ay sheegeen inay dhankooda u soo gurguranayaan gaadiid isugu jira kaarayaal beebeeyo dayacan hub la jiidayo qoryaha garabka laga tuuro madaafiicda goobta iyo weliba gantaalo la walaandeynayo waxay sheegeen inay samada ka halqafayaan diyaaradaha wax horara oo la daba jabinayo dhankii la eegaba loona baahan yahay in laga soo gaadho war yar oo lagu soo gasangeeray mareegta jabhadan oo ku qornayd afka luqadda Amaarada oo aanu idiin soo dalagnay soona turjunay ayaa u dhignay sidan col iyo cadaawo isugu jira ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka Amaarada ayaa dhan kasta naga fadhiya iyaga oo na kulaalaya waxaana uu hoobanayo bay yiraahdeen rasaasta cir iyo dhul iyada oo waliba ayna soo weerareen dawladda Abiy Ahmed iyo waliba Amxaarada oo ay rabaan inay dib mar kale u qabsadaan deegaanka Tigray ee waqooyiga Itoobiya docda kale qoraal ay malaha TPLF ugu tala gashay reer galbeedka oo lagu qoray afka Faransiga ayaa lagu yiri in gaaraayuunta Tigray ay doonayaan nabad maadaama hadda uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya doonayo sidoo u gabagabeyn lahaa dhinaca kale ururka midowga Afrika ayaa dhayda ka cadeeyay in loo baahan yahay markii ugu horeysay sidii Soomaaliya loogu soo shubi lahaa ciidamo ay leedahay Jimciyadda Guud ee Qaramada Midoobay si lamida gugii 1990 waxay sheegeen in hawlgalka Soomaaliya ay u joogaan duulka bidoodka ee AMISOM la dhalan rogi doono iyadoo Qaramada Midoobay iyo midowga Afrika ay iska kaashan doonaan warqad lagu joogsaday oo ka soo baxday sidan iyo golaha nabadgelyada midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyay guddi madax banaan oo misana ka tirsan ururka midowga Afrika kaasi oo soo jeediyay in hawlgal wada jira laga fuliyo Soomaaliya taariikhda la qorsheeyay hawlgalkaas uu bilowday ayaa bisha Janaayo ee guuga 2022 haddaba xukuumadda madaxweyne Farmaajo ayaa ka jawaabtay waxaan ka soo yeedhay AMISOM iyo waxay aga ku jiitaan waxay sheegtay inaanay marnaba aqbali doonin sidii ay ciidamo ka socda Qaramada Midoobay ay u soo gali lahaayeen ciidda Soomaalida iyagoo kaashanaya AMISOM qoraal lagu soo girgiiray bogga wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya balse ka soo baxay wasaaradda umuuraha dibadda ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay si xooggan u diidan tahay oo aanay ogolayn sidoo kalena wax kaleba ka xigto qorshaha uu ku talinayo hawlgalka wadajirka ee midowga Afrika ururka midowga Afrika ayaa sidoo kale u jeel qabay in la balaariyo tirada lana kordhiyo dalalka ciidamada AMISOM ee ka jooga Soomaaliya oo hadda 5 dal oo kala ah Itoobiya, Uganda, Burundi, Kenya iyo Djibouti kuwaas oo tiradoodu dhan tahay 19,000 oo askari si kastoo ay haataba arrimaha aan isgalayn ayaa noqonaya iyadoo Soomaaliya doonayso in AMISOM dalka ka huleesho nabadda koonfurta Soomaaliyana loo gacan geliyo askar iyo ciidan loo tababaray xukuumadda Farmaajo ugu dambeyn daawada arrintani si loo dhabqiyo koonfurta Soomaaliyana aanay halka uga dhaqaaqin oo talaabo la riixin waxa lagu soo wadaa ciidamo hor leh iyadoo go'aamo aanay Muqdisho iska waabin karin ay ka soo eekaanayaan midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay oo waxoogay baajeerisa ku soo yuubyuuba dawladda federaalka Soomaaliya
iyaguna wararka kale ay dabayluhu ka soo lalinayaan dhanka iyo magaalada Baqdaad ayaa iyana ku waramaya in xisbiyada ay abka wadaagaan Jamhuuriyadda Islaamiga ah Iiraan ay hadur iyo hawtalhamad ku tilmaameen doorasho ku sheegi baarlamaan ee geyiga ka dhacday Ciyoon. xisbiyadan doorashada ganafka ku dhuftay oo ah kuwa tooska gacan saarka ula leh dalka Iiraan ayaa doorashada ku tilmaamay inay ahayd mid wax la isweydaariyay faji iyo waliba fal la soo maleegay. waxay ku xil fureen inay ambiil ka qaadan doonaan go'aanka sheegayay ama dhigayay in dhankooda doorashada lagaga gol roonaaday. dowladda la sheego inay haysato hubka dhunkaasha iyo dhiro dhabatada ka samaysan ee Iiraan ayaa ahayd dal in muddo ahba laga kala riday dalka Ciraaq kadib kolkii huwantii Maraykanku digada iyo dambaska ka dhigeen xukuumaddii uu calanka u siday wiil hoogii la odhan jiray Saddam Hussein al-Tariiki. si kastaba ha ahaado xaalku waxaa eega la arkaa inay isdhintay saamayntii Teheraan ku gacan togaaleynaysay Baqdaad teer iyo markii ciida dalka Ciraaq lagu gaban waray in shiicadu ku dhaadan jirtay oo magaciisa la odhan jiray Qaasim Sulaymaani. isaguna wiilka ka arrimiya wadankii hore loo odhan jiray Abisiin iyo Abiy Ahmed ayaa hadal isugu dhafan galaal xor goodi wax sheeg iyo waliba galalaati u jeediyay ragga iyo maraweynta uu wasiirnimada dhawaan kula itaalay. Abiy Ahmed oo sidii aabe abeydinkiisa la hadlaya marwaaninaya duulka wasiiro lagu sheegay mar kalena u hanjabaya sidii abaanduule col u dadaar warinaya ayaa u soo jeediyay inay noqdaan kuwa madax iyo magac reeba oo aanay noqon qaar kaligood iska laba liqamaalka dadweynaha oo walibana calooshooda la ciyaara. Abiy Ahmed ayaa wasiiradiisa cusub u sheegay inaan loo baahnayn kaftan iyo falaad lagaga dhunto howlaha halbowlaha balse loo jeel qabo in xil iska saaro qoomka 100 milyuun cagacagaynaya ee loo dhaariyay. oo sidoo kale ku halay in loo baahan yahay in la xididsiibo baahida macaluusha gaajada diifta dacdarrada anta weerka koondaska kadaaliga iyo waliba darxumada dalkaasi la irdalan yahay. ugu dambeyn daawada ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa hadalkiisa ku soo gooyay in gabi dheer laga tuuri doono wasiirkii kacaanka ka gaabiya ama shaqadiisa ugu hagaagi waaya si quman oo aan weerweel lahayn. dhinaca kale geedka lagu noqo xasaradaha carre edag ee magaceeda loo yaqaan heeg ayaa galabta kolkii ay libdhadu godka ku sii hooyanaysay war ka soo saaray gartii ku saabsanayd qaydka badeed ee u dhaxeeya Soomaalida iyo bidoodka Kenya. dhageysiga gartan oo ay maqnayd madaacaligii Kenya balse ay soo kambaruureen muducigii Soomaaliya ayay maxkamaddu ka soo saartay go'aan ah ay diidna garle calina garle. waxaa geedka lagu gooyay in Kenya culuq yar laga siiyo aaga la isku cashiimeynayo Soomaaliyana qaadato inta badan soodimaha aan laga dhigin xariiquman balse la xagal daacinayo. waxa kale oo iyana ashqaraar ahayd in goobta garta lagu naqayay uu golajoog ka ahaa saajinka sanadkan horaantiisii xamar kala xidhay ee Saadiq John. saajinkan laga rifay garoomihii garbaha u sugnaan jiray ayaa ahaa nin ay farmaajo ahaayeen coldaahi go'ay iyaga oo isbaar eeganayay sidoo kalena aan midna kan kala bixinayn. waxaa la arkayay iyadoo maxkamadda heeg ay ka hortimi dhammaan sheegashadii Kenya ee ahayd ku qabso ku qadimay sida iyadoo dhanka kalena xukunka uu ka muuqday. go'aanka ayaa 80% u xukumay in Soomaaliya leedahay biyahan keenay in xeer beegti badani geedka u dooyeysato waxaana docda Nairobi loo qayday 20% oo u dhiganta 12 geedi ama mayl. 12 geedi ee sida dambabaska loo siiyay Kenya ayay sheegeen qolyaha siyaasadda qoolaaliya in wax ku jiraan waxay ahaataba iyaduna waxaa laga dheehanayay shax meesha la soo dhigay in Tanzania ay bogcad biyood ka maradhaantay dalka Kenya taasoo keentay Nairobina ay tunjilaacsato Muqdisho oo ay xaggeeda isu soo dhigto kuna soo durugto biyaheeda. iyadana cawadarantii xalay ahayd kolkii afada lagu magacaabo Khadiija Diiriya ee xamar ka soo tuurtay hadal ahaa ku quuso quraanjo iyadoo ku walacsanaysay qaadhaan ahaa hooyo ku oo ay sheegtay inay hore ugu yaboohday mudanaha haysta aqlabiyada dhanka xildhibaanada ee Somaliland Barqad Jaamac Batuun. waxaa laga dheehanayay quraaradaha warka duuba Khadiija Diiriya oo warfinaysay wax faraguudkooda oo ay sheegtay inuu yahay gacan maris ay ka soo jaabaysay dad xamar xilal ka haya iyadoo intaa ku dartay inay ka laabatay caanteynadii ay hore Barqad ugu carab rushay. haddaba waxaa in yar kadib kolkiiba koobta iyo mareegaha bulshadu ku xidhiidho isqabsaday faalaynta walacsiga Khadiija. warka ayaa sheegaya in isla xalayba ficil waabele 20,000 oo ka bidaarta iyo salxanyaale lagu soo kalwiyay kiishada Barqad Jaamac Batuun tiyo isla gadiidkii maantana farta laga saaray
xildhibaan barkad jaamac butuun ayaa sheegay inuu shilimadan la guddoonsiiyey ku dhisi doono goob caafimaad oo laga qotomin doono xaafadda ooshiisa iyo dadka la iska bidaa ka ceelhayaan ee daami. wararka iyaguna aan idinka hayno magaalo xeebeedda Berbera ayaa sheegaya in 12 caanamaal aanay waxba ka soo degin haabada Berbera iyadoo ay hoganayaan xeebta magaalada maraakiib la guureynaysa lana tiicaysa reer kala duwan. waxa uska ku raran maraakiibtani ayaa la sheegay inay leeyihiin xayiigteeda duul ganacsato oo laf dhuun gashay ku noqday dad iyo dawladba. xukuumadda Soomaaliland ayaa la sheegay inay ka duraamanayso sidii ay isaga bixin lahaayeen lacago macaasha. waxaa sidoo kale la weydiiyay inay keenaan waraaqaha ay wax kaga soo gataan dunida si loo ogaado intay soo siisteen maadaama ay maciishadii la quudan jiray ay cirka ku taareen. xogaha soo gaadhaya TV ayaa tibix ka siiyey in maanta arrintaasi la isku afgartay kadib markii ay guntaha isla galeen ganacsatadan iyo wasaaradda maalka uga wakiilka ah xukuumadda madaxweyne Biixi. maalinta berri ayaa la sheegaya in maraakiibtan laga dejin doono rar ka saaran si ay uga ceel qabtaan meelahay ka soo hangagaareen. ugu dambeyntii daawada warkeena waxaa dhudhub halkeera waxay la soo taagay Ismaaciil Yare oo ka mid ah cagadambliyaasha daba orda xisbiga wadani ee ay u boodhor yihiin dadka xagga ciyaalka wararka roosada ayaa weydiiyay su'aalo dhowr ah oo daaha ka feeday hunuhunu iyo waliba xoga aan rushadooda lahayn oo la isla dhexmeeraysanayay. warka uu maanta Ismaaciil Yare oo uu hore idinku binixiyay TV iyadoo dhinaca kalena la sheegayo in xisbiga wadani loo kala baxayo kooxo. wuxuu sheegay Ismaaciil Yare in dib loo durkiyay oo la bariijiyay ama dib loo dhigay shirkii xisbigaasi oo isugu imaan lahaa kaasoo ku beegnaa 31 bishan aynu dhexdeeda ku jirno. wuxuu sheegay inay kaliiftay dib u dhiga dhowrka makacdo oo ay ka mid tahay ergadii shirka oo xilligii loo qoondeeyay ku imaan kari weyday, ifilada xanuunka 20 midla, dhinaca kowlka ama dhadhamada oo xisbigu baajeerinayo, iyo tan ugu muhiimsan oo ah qolyo miisaan ku leh oo shirka fooda soo gelin doona kuna biiri doona xisbiga wadani oo la maacuudinayo. intaa wuxuu ku daray siyaasi Ismaaciil Yare in ragga ku soo jeeda ay ugu horeeyaan Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wuxuu aga ku jiito kaasoo la filayo buu yiri inuu ka mid noqdo xubnaha u tartami doona gudoomiyaha xisbiga wadani. Ismaaciil Yare oo wajigiisa ay ka muuqatay dhirif iyo cadays biirsatay ayaa si afgobaadsi ah u bitiyay in kooxda Xaashi wato ay mar qura ka war heleen iyagoo ka bedelaya ama kala guraya oo ama kala rogaya taladii xisbiga wadani. wuxuu sheegay lagu qanciyay qorweynta iyo xisbiyahanada wadani inuu Maxamuudigu wax weyn taartay xisbiga wadani iyo beesha loona baahan yahay. waxaa la sheegay in tani shiiqinayso ama burus ku ridayso qolyo ku qooqnaan jiray xisbiga kana doobin jiray waagii hore. wuxuu dhinaca kale si xaal mastuura ku ayaayurtay Ismaaciil Yare isagoo aad moodo inuu isxakamaynayo caradana isku celinaya in la isla qaatay in iyaga loo dabbaabo xidhnaado waxay rabaan ay ku socodsiiyaan xisbiga. iyaduna waxaad ka war haysaan markii xisbiyada mucaaradku ku guuleysan shirgudoonka iyo inta badan duqeyda degmooyinka Soomaaliland in loo sibir saaray guusha siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi. xilligaasi waxaa arrinta ganafka ku dhuftay Ismaaciil Yare oo sheegay inaanu wax guula keenin ee isbahaysiga xisbiyada u ciidiya wadani ay kaashadeen. si kastaba ha ahaatee waxaa soo baxaysa iyaduna in durtaba uu gudaha xisbiga wadani uu ka bilaabmay buraameys, buuq, buuftaan, bariiqasho, bidhaneri iyo waxaan la hilaadin karin. intaa waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa Maxamed Aadan Diritan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante.